Doonaysa inaad ka faa'iidaysato scholarship markaas jira 2020 China scholarship top universities markaas ugu muhiimsan inaad markaas scholarshipkan ugu faa'iidaysato dokumentiyada laga baahan yahay inaad apply gareyso China scholarship iyo sidoo kale subjectyada markaas reliable ah laga heli karo markaas ka diyaari kartid China scholarship iyo sidoo kale website-ka markaas lagu apply gareeyo si aad u hesho scholarshipkaas iyo xilliga la apply gareynayo. Haddii aad markaas channel-ka cusub tahay please subscribe dheh si aad u hesho macluumaad badan oo la xiriira scholarship iyo sidoo kale waxyaabo badan oo markaas aan ugu talagalay inaan la wadaago asxaabteyda channel-ka ku xiran iyo cid walba oo doonayso inay markaas ogaato macluumaad badan oo la xiriira scholarship markaas jira. Waxaan soo dhigi doonaa isbuuc walba video cusub oo aan uga hadli doono balse maadaama hadda xilliga scholarship-yada la joogo ay tahay jadwalku waa bedeli doonaa. Waxaan sameyn doonaa marka every 3 days waxaan soo dhigi doonaa macluumaad markaas ku saabsan scholarship-yada markaas jira hadda kuwa oo xilligooda la joogo oo furan yahay waa China scholarship. Kadib waxaa laga yaabaa 15 days kadib inuu furmo Turkey scholarship oo Buslari ah. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in Turkey scholarship Buslari oo socdana Islamic World oo markaas bixiya ayadana scholarship ay bixiso iyo sidoo kale dowladda Qatar ayadana bixiyaan scholarship markaas 2020 marka videogan waxaan uga hadli doonaa oo kaliya China scholarship maadaama xilligeeda la joogo. Marka China scholarship 2020 waxaan uga hadli doonaa inta kor aan kugu soo sheegay. Intaan gudgalin kor videogan magacaygu waa Maax. Sidoo kale markaas haddii channel-kan ku cusub tahay hadda subscribe dheh si aad video walba u soo dhigo oo kuu soo gaaro. Sidoo kale si aad video walba aan soo geliyo isla markii automatic kuu soo gaaro gambaleelka furo. Waxaadna ogaataa in mar walba every week aan soo dhigi doono laakiin hadda jadwalka hadda aan bedelay 3 days kadibna aan soo dhigi doono video markaas cusub aan uga hadli doono waqtigaas markaas scholarship markaas taagan. Dad badan ayaa gooni ah isoo weydiiyeen China scholarship oo doonaya in macluumaad badan ay ka ogaadaan khaasatan 2020 waxyaabaha markaas la iskaga baahan yahay oo ay ka mid tahay top universities markaas jaamacadaha jira oo scholarship ku bixiya dokumentiyada la iska doonayo iyo sidoo kale subjectyada markaas reliable ku ah si aad ugu faa'iidaysato scholarship-kan iyo website-ka laga apply gareynayo iyo xilliga markaas ay bilaabanayso China scholarship 2020. Ugu horreyn waxaan ka bilaabi doonaa dokumentiyada laga baahan yahay. Dokumentiyada laga baahan yahay waxaa ka mid ah haddii aad doonayso inaad apply gareyso China scholarship hadday tahay master degree hadday tahay bachelor degree iyo hadday tahay PhD. Waxaa laga baahan yahay inaad haysato passport oo copy ah passport-kaaga waa inaad haysataa. Sidoo kalena sawir markaas oo taysara ah si aad markaas ugu faa'iidaysato scholarship-kan. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha laga baahan yahay si aad ugu faa'iidaysato China scholarship shahaadadaada dugsiga sare ama jaamacadda bachelor-ka ah iyo sidoo kale haddii aad master tahay markaas PhD apply gareynayso ayadana waa laga baahan yahay. Shahaadadana waa laga baahan yahay. Waxaa kaloo laga baahan yahay transcript laga baahan yahay oo caddeynayso maadooyinka aad soo qaadatay markaas. Even xataa haddaad tahay undergraduate haddaad dugsi sare qof dhameeyay transcript isku day inaad markaas diyaariso oo 4 sano ugu dambeysay markaas oo dugsiga sare ama 3 sano ugu dambeysay dugsiga sare aad ku jirtay maadooyinkaaga iyo waxa aad ka keensatay transcript aan u diyaari ama haddii kale shahaadadaada dugsiga sare ah ku apply garee oo shuruudaha markaas la iska doonayo qayb ka tahay. Sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah shuruudaha markaas la iska doonayo si aad u apply gareyso 2020 waa inaad markaas haddii aad diyaarinayso bachelor ama master ba aad diyaarinayso iyo xitaa PhD waa inaad markaas aad u sii diyaar garowdaa dokumentiyada lagaa rabo ay ka mid tahay study plan. Waa inaad qortaa waxa aad doonayso inaad barato 500 oo words. Waxaa laga yaabaa marka in bachelor-ka iyo master-ka ay kala sameyn yihiin 500 words inaad qortaa waxa ku qorsheysan
haddii aad China aad tagto ama maadooyinka markaasi aad doonayso inaad barato wax kaaga qorshaysan study plan ahaan diyaari iyadana waa laga baahan yahay. Marka way ku kala xiran yihiin haddii aad bachelor aad tahay inta word lagaa rabo iyo haddii aad tahay master iyo haddii aad tahay PhD. Kuley waxa waaye markaad documentiga aad gudaha sii gasho ayaad arki doontaa. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha laga doonayo recommendation letter oo markaasi khaasatan waxay khusaysaa bachelorka iyo masterka. Recommendation waxaa laga rabaa oo professorkaaga oo jaamacadda khaasatan researchka aad diyaarinayso inaad markaasi warqad markaas recommendation letter uu ka qoro inaad hore already project oo soo diyaarisay arday fiican aa ahayd. Recommendation letter la tag supervisorkaaga soo kugu soo qoro ama uu kula diyaariyo ama ha kaa caawiyo si loogu diyaariyo recommendation letter. Haddii markaas si khaas ah u baahan tahay in laga helbi karayna waxa waaye si gooni ah la soo xiriiri kartaa. Recommendation letterkaas waa kaa saacidi karaa. Laakiin special waxaa kugula talin lahaa inaad la aado professorkaaga ama sidoo kale macalinka markaasi markaad diyaarinayso projectiga supervisorkaaga inuu aad la tagto oo kaa caawiyo. Sidoo kale waxaa kaloo looga baahan yahay research proposal markaad diyaarinayso in research proposal la imaado waxa markaas aad doonayso inaad barato haddii tahay master haddii tahay bachelor. Research proposalka inaad ka sameyso area markaas aad markaas diyaarinayso as master ahaan ama bachelorka. Waxaa kaloo ka mid ah waxa laga baahan yahay journal scholarship documentiyada laga baahan yahay ka mid tahay physical health caafimaad la xiriira. Midkaasna waxaa wadato journal scholarship kaliya waa buuxinaysaa waxaana la tagaysaa takhtar la tagaysaa oo markaasi kala buuxinaya foomkaas. Marka arday walba hadduu yahay bachelor hadduu yahay master undergraduate warqadaas waxa waaye caafimaadka laga baahan yahay. Haddii aad markaas soo download gareysan karto website-ka dhexdiisa waa okay. Haddii aad markaas soo download gareysan karin waxa waaye la soo xiriiri kartaa qayb description-ka kadibna waxa waaye all details waxa waaye meesha ugu soo qori kartaa si gooni ah haddii aad doonaysana waa kaa caawin karaa. Iyadana waxyaabaha la iska baahan yahay ka mid tahay. Waxaa kaloo ka mid ah markii aad apply gareyso all documentiyada dhan aad buuxiso ugu dambeyn inaad print gareysaa aad daawacdaa as online ahaan si hadhow consonantiga oo journal scholarship guddiga journal scholarship markaasi bixiya si hadhow ola tagto. Okay, that's why information markaas waxyaabaha laga doonayo journal scholarship. Ama laakiin jaamacadaha markaas top universities ka ahna qaybta shaashada kaga muuqan doonta waa kuwa hadda markaas isleeyahay waa top university-ga jaamacadaha markaas ugu sareeyo ama markaas apply gareyn kartid journal scholarship. Marka waa intaas oo macluumaadka markaasi aan kugu talagalay video aan uga hadlo. Guys meel baa joogtaan welcome. Wixii markaasi su'aalo ah qaybta description-ka igala soo xiriir. Waxaan ogaataa scholarship-kan 100% waa free haddii aad markaas success ama ku guuleysato. Waxyaabaha markaas aad ku helayso waxaa ka mid ah in markaas aad helayso jaamacadda hoyga ka seexan lahayd. Waxaa kaloo ka mid in markaas lacag lagu siinayo tuition fee ahaan lagu talgalay in caafimaadkaaga inta aad markaas China aad wax ka baranayso sidoo kale dowladda ay damaanad qaadayso iyo sidoo kale waxa waaye tikidkii iyo visa aad ku bixi lahayd iyo xitaa hadaa aad markaasi aad soo dhammaysato haddii tahay bachelor haddii tahay master ayadana markaasi ticket return-kaaga aad ku soo noqon lahaydna ayadana dhammaan dowladda China ay bixinayso. Taas waa information kaas haddii mar kale aad channel-ka subscribe